waa idin salaamay dhammaan inta videoga daawanaysa videogan wuxuu quseeyaa baryahanba waxaan arkaynaa gabadh ku dhegan deeqa la yiraahdo oo gabadha xamdi kalgacal ku dhegan oo ku caynaysa ilaah baan ahay waan kaa qabiil fiicanahay naag sidanaa tahay naag kanaa tahay sawirkayga yarkaa iska caabuda ilaah baan ku ah horta walaala laba tallaabo dib u joog xamdi kalgacal hadday live-ka kuu soo gasho laasacaanood bay kuu tarxiilaysaa anaa kuu sheegaya haddaba okay hadday live-ka kuu soo gasho habeenkaa labada kalmadood ay ku tiraahdo wallaahi bilaahi tullaahi ma dhalaysid aniga xamdi kalgacal ima oga ima soo dirsan shaqo iguma le waxaanu adkaysan waaye waxaanaad ku hadlayso naa darwiish baad isku sheegaysaa darwiishka haddaan kaaga sheekeeyo qabiil sidiisa wax la ysku barto ma aan wax la yskugu faano naa xamdi kalgacal way kaa qurux badantay kow way kaa yar tahay labo way kaa aftahansan tahay saddex way kaa fiyus badan tahay afar way kaa xishootay oo waanu qabsanay oo aamus baan dhahnay anagoo friendiskeeda ku qabiil ahayn kuma qabiil ahi ogow taa gabadh ma dhibaana ma ihi anigu baanu nidhahnay xamdi kalgacalay habartaa kaa weyn oo halkaa soo kada loobta hala hadlin walaalay ka aamu ka roonow haddaan la kala rolaan roob ma da'e xamdi kalgacal waxay tiraday haye maalin kasta waxaad soo duubaysaa video cusub waxaad moodaysaa inay kaa baqday gabadhu laakiin kaamay biqin ma kugu fasaxnaa walaa fasax ma siina annagaa kaa qabsanay oo asxaabteeda oo fara badan baa iskugu tagnay nidhaahnay walaal ka aamu anigu anaa la hadlay waxaan ogay kuwo badan oo kale inay la hadlayaan marka walaal horta darwiishka adigu qaadaad sheegayso haddii jannada lagu tago iyo haddii uu yahay dad darwiish hadduu saa u hadlay darwiisha saa u hadlay hadday jiraan darwiish wax leeyahay ma jiraba darwiishka sisa waa qabiil la isku barto walaal xamdi kalgacal maanta bal maxaad dheerta bal ii sheeg iyadaa kaa anigu uqsima bilaahi iyadaa kaa qurux badan oo kaa hadal fiican oo kaa aftahansan oo maanta anigu waxa waa kula yaabay ilaahaa yar oo halkaa soo fadhiya caabud naa miyaadan xishoonaynin naa habar weyn baa tahay labadii noodba beesha oo halkaa soo fadhiista oo muraadba soo xidhatay inay isha kale kaa dhacday kuma baqaysid miyaadan ka baqan cuqubo gabadhaa miskiinta nayaa fiiri dulmigu ma fiicna dulmiga xataa ilaahay baa diiday dulmigu ma fiicna ha dulmiin ummadda dib u fadhiiso haddaadan fadhiisan soomaa xamdi kalgacal life kuma soo gelaysa anoo gabadhaa yaroo qalanjada ah baan baalaha kaa rifayaa baan ku dhahay baalaha inkastoona jecel naagana baalaha ka rif so waxaad gartay maa xamdi kalgacal keligeed maaha balona gabadh daaroodan kuu soo baxaya marka laba naagood oo daarooda facebook isku laaya hala yiraahdo ceebtaada markaas waa markaa marka ugu ceebta badane darwiishkaad sheegaysaa ha baabi'e haddaadan ka xishoon xamdi kalgacal anoo naag daarooda oo xamdi kalgacal ku qabiil ahayn baan baalaha kaa rifayaa waxaa tahayna kuu sheegaya haddaadan xishoonin hadhowtana laba naagood daarooda isku dhegan hala yiraahdo haddaad naag xishoonaysa oo daaroodkaad sheegaysa qiimo u hayso waad aamusaysaa afkaad xidhanaysaa waxaad odhanaysaa in adeeray haye haddii aad tahay habar waalan oo sida aan kugu maleeyay aad tahayna anaad isugu soo dhegaysaa kow anaad lifeka iga bilaabaysaa ileen waxaad ku dhegtaad rabtaa waxaad ku caanbaxdaad rabtaa mogtaa kow anaad lifeka iga bilaabaysaa haddii laakiin aad naag asiila tahay oo daaroodka sheeganaysa tahay ilaahaad sheeganaysaba adaa ilaah sheegta anigu ilaah kuma naqaana ilaahna ma tidi waxaad odhanaysaa maadaama naagtaan xamdi kalgacal naaga daarooda garabkeeda ay taagan yihiin yaanan dumarkaa kalena isnicin oo gabadha afraad ka qaadaysa xaal baad bixinaysaa xaalba ha bixin aamu facebook dambe haleefka kasoo gabadha ha uga soo gelin haddii kalena isa soo diyaar garow labadiina inuu ahaanaysa sababtaa waxaa la yiri dulmiga layskuma raaco anigu dulmiga kuguma raacayo in aan ku caayano halkaasa ii taaganta adduunyada haddaan qof caayana waxiga afar lama arko laakiin anigu ma jeclin dumarka soomaalida inaan ku dhigdhigo caayo ma jeclin aan dumarka ataago waxaan jeclan inaan shibteeda u baxo oo arrimahaga kale ka shaqaysto so waxaad garatay maaha inaad eray nayaa naagtada ilaah sheeganaysa haddaad ilaah tahay maxaad muraayada usoo xidhat ilaah muraayada u xidhaa haddaad ilaah tahay maxaad dharka usoo xidhat haddaad ilaah tahay maxaad noos hor fadhiista ilah ma aragno anagu haddaba ilaahay maba naqaano meelu joogo waxaad garatay maaha haddaad darwiisho tahay oo wax isku falaysidna maxaad u xishoon weyda naaya maxaad wax isugu fali weyday oo ugu xishoon weyday gabadhaa kaa aamusan haddaad darwiisho tahay wax isku falaysid darwiishkaad qaaliga ka dhigaysid aad tahay maxaad ilmahaaga aad life kala soo hor fadhida iyagoo gaajoonaya halkaasaan ku eega waa isaad u labisantay naag walba isaga labisantahay nafteedu ka muuqataa naag walba sida iyadu tahay bay ka muuqataa nolosheedu yaa haddii aad tahay nayaa maxaad ilmahaaga qalbigooda u dhowri weydi haddii aad naag darwiishada tahay oo macno leh oo ismacnaynaysa dee oo la naagtani waa midgaan dheh
taadgu cayna soo dee inada caynaye gabadha gabooye sharaf kale maxaad ugu rawanaan weydo afkaaga xiran weydi naan qofaan iskala weyn anigu lama hadlaba laakiin xamdi iyada iskala kaa weyn oo iyada kaa qabiil wacan oo iyada kaa fiican oo iyada kaa sharaf badan waxaa dhici karta adiguna bagarac ahaydba halkaasna qalad ay ugu ahaatee haddaad leedahay darwiishinku waa dad fiican yahay way aamusi lahaayeen laakiin ama adigu wacal tahay walaa oo aad ku qulaabanaysaa baad qabiilkaba ahaynba walaa bal qiyaas hadalkayga qof qabiilkiisa isku faaninaya oo haddana ummadii ku qaldamaya lama aragde ma inaan kugu raacno hartaa qaladka uguma raacayno qaladka walaal haddaba waanu kaa istaajinanaa haddaba anigu shakhsigana damiir baa igu jiro oo dadka damiir kala miba jeceliba in ummadda ku dhigdhigaan damiir yeelo walaalo isku nax okayaalahan waaweynkood saacadahan ugu soo hor fadhido indhahaaga waxu dhimayaan seexo relax baalaha indhaha lagu shubtee daawada indhaha soo gado ku shubo seexo laakiin halkaasaan life soo fadhiisanayaayo maanta dhan baan wadaya lama baana saaxiibadaba waxaas soo waxaad garata maaha ka gudub sheekadaas you understand me waad fahamta soo maanayaa haddii kaleta baalaha lagaa rafaya kuwa qaladka ugu raacana waa kuwa adoo kaleeta ah markaad life ka baxdana isfiirsasaad u hadlayso hadalkaaga dhageyso hadda dhulbahantahaad sheegaysa darwiishkaad sheegaysa way xishoodaan de anagu saan ku naqaano dad xishoodo weeyaan laakiin adugu ma xishootid bahal waxaad xisheedu ka lumay darwiish baana naa gabadhaa gabooye haddaadan ka leexan nidar baan galay inaan baalaha kaa rafo habeen imaan life kusoo galo aniga igu soo caanbax markaa aniga soo raadso anigu hal mar baan baalaha kaa rafaya 2 mar kaama rafayo 3 kaama rafayo hal mar baan wax kuu sheegayaa bas waana kaaga baxa waayo cantara baqashka naagaha ma qaato anigu haddaadan ka harin gabadhaa oo aadan faraha ka qaadin baan ku dhahday cantara baqashka naagaha ma qaatee hal mar intaan baalaha kaa rafo oo xamdi kalgacal iyada soo qabtay xataa ku bahdisho lifekayga kugu bahdisho ku cayso xataa aadha xamdi kalgacal ciil bax baanu kaaga baxaynaa sheekada labadeedu waan kaaga baxnay aduu markaa maanta dhan qayli maanta dhan hadal naag darada iga hirisay dhe naya waxaan kuu sheegaa aniga qabriga daaradinama gelayo hooyadii hawasee ma qabrigu ila geli xamdi kalgacal waa gabadh soomaali ana gabadh soomaali baa gabadh soomaali baa tahay laakiin adigu soomaalida ta ugu xun baa tahay ma garad soo hubi bal aabaha iyo ayeeyada intaasna qalad ay ugu ahaatee balna adigu heeraha sheegas ka dhalatay in kaleeto soo hubi ugu dambayntiina hadda darwiisho tahay haddaad ilaah tahay haddii kiila caabudida tahay okay waxaad isku malaysa walaa yaad ismoodi waxaad ismooday in lagaa baqayo xamdi kalgacal kaama baqaysa annaga aamusinay aamus baanu dhahnay xamdi kalgacal adiguna sawir aylada naagtada soo dhigto ka lidataa sawir aylada soo dhigin fiidiyaduna waa tuur fiidiyogana ku taygareen uma aqaani balaayade mana raadsanaye ku taygaree sii u geey marka amaha soo qayliso haysoo kala baraaqsato anigu say u baraaqsataanba jeclay u fadhido ama ha tiraahdo haye in adeeray anigu waa xishooday oo arrintaa la dhexdhexaadiyo oo halayda dhex galo ama anigu dhex galo ama mid kale dhex gasho haddii kalena aniga soo raadso aniga igu soo mashquul waxba igama heliside anigu kulama dhurmayo waan kuu sheegayaa waxa aad tahay beersoonka aad tahay sawiradan oo dadka noocaas oo kalena facebookiga waan kala xishooda uma dadka ku mashquulsaska u caaya waaba kala khashaafa kuma mashquula sawiradooda sawirkaagana xamdi way tuuraysaa ma rabto waxay rabtaa uun inay kaa xaraamaysato oo aad qayliso uun dee qaaq oo kaa dhammaad maxay ku faraysaa xamdi kalgacal sawirkaaga naa xamdiyay tuur sawirkeeda waxba soo qaadanin walaal waqtiga aad gelinayso habartaa weyn oo aad aragto say tahay iyo say u taalo iyo say u dhurmayso iyo say u qaylinayso oo qabiil ku faanaysa oo ilaah ku faanaysa adigu haddaad xamdi kalgacalay aad baraa raadiso oo sawirkeeda soo googoosato adaaba ka daranba haddii xamdi kalgacalay sawirkeeda naagta aad soo qaadato adaa ka daran aniguna markaa xaal baan bixiyay waayo adaa ka liitaba aniguna iyada xaal baan bixiyey markaa haddii sawir dambe fideogan markaad aragto sawir ka dambeeya sawirada soo qaadato xaal baan bixiyay anigu waayo adaa ka liita haddii kalena dhiliid sawirkeeda walaalay annagaa walaalahaya ku garab taagan 100 qof aa garab taagan habartaan xunta waxay rabtaa inay xoogaa fiyus ku hesho waxay ka soo hadashaynan garanaynin hadda wadarka doontaa anigu soo dhigi doontaa wadarka doontaa aniga hadda aniga soo qabsan doontaa wax ay ka hadashaynan garanaynin fiyus ma haysato waxba ma haysato oo iska soo dhaqleedahay dhaqdaasay haysaa bas naag dhaqle maxaad ku fil dhaqdeeda walaa oo waalat you crazy xamidi inay wax qofku markuu wuxuu ku hadli garan waa ummaddu ku soo mashquula oo iska soo baqbaqleeya naya
حمدك القعلي وبحا إيجا قدور وبحا الصومالي باتا dadka Soomaalida ugu wacan baatay ubaxaasan ku hadiyadeeyay walaalo madaxaad noo saaran tahay halkaasaad saaran tahay gabar Soomaali baad tahay wallaahi oo billaahi oo tallaahi gabar ka ficnaan ku arag meediya waayo waan ogeyn qabiilada marar ku mashquulshay laakiin daab aad maagta ka aamustay naag dhiig labaatay naadeer dhiigaaga hayso sawirkeeda dhiliid candhoofana ugu sii dar kuwa teegare kan ku teegare anoo naag daarooda baan kaaga hiiliyay inaad arintaa ku qanac darwiishka ay sheegaysana maba ahanbo ubaxaas baan ku siinaad alxamdiye adaan kuu soo gaday ubaxaa adaa iskale walaasha yaa tahay waxaa yaan lagugu baqsan darwiish baan ahay jinni baan ahay caabudi ilaah baan ahay yay ilaah u tahay iyadii baa tacbaansanoo muraayadihii bay iska bedeli kari weyday gabasaarta bay iska bedeli kari weyday dirac xun oo shiida oo fool xun bay saas ugu soo dhex fadhidaa meesha ayaguna adoo gabar kala kacsanaad maykab kuu marsa adduunka aad meesha soo fadhiisataa isma gaara kartin habeenii maalin baa kala tiiranaa ogtaas salaam